oqaal waxgaradka iyo bulshada degmada Qorulugud oo kulan warbaahineed ku qabtay degmada Qorulugud ee gobolka Buuhoodle ayaa taageeray isla marhaantan uga mahad celiyay madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland magacaabid oo magacaabay Cabdirashiid Maxamuud Cali Riyaara oo uu talagalay inuu ka mid noqdo kubishka doorashooyinka qaranka Soomaaliland waxaana eedo culus soo jeediyeen xisbiyada mucaaradka ee wadani iyo oo ay ku tilmaameen kuwa mar waliba ka soo horjeeda horumarka dalka iyo in ay doorashooyinka qabsomaan guud ahaan Soomaaliland sidoo kale waxay farta ku fiiqeen shakhsiyaad si gaar ah u caaya mas'uuliyiinta xilalka ka haya qaranka Soomaaliland kuwaasi oo uga digeen in ay caadaystaan cayda mas'uuliyiintaasi halkan shirkan salaad maanta waxaanu ugu qabanay maxay ahayd anagu joognay degmada Qorulugud waxaanu halkan ka tahaniyeenaynaa oo tahaniyada kaliya laba u direynaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland xubnaha uu magacaabay doorashooyinka komishanka ee hawlkarka ah iyo kuwa ay magacaabeen xisbiyadu iyo kuwa uu magacaabay gudoomiyaha guurtida Salmaan Maxamuud Aadan intaba uu hambalyeynaa waxaanu leenahay madaxweynuhu isaga yaqaana cidda hawsha qaranka ka adag Cabdirashiid Riyaara ma keenin habar jecel ma keenin reer ma keenin waxa yaqaano doortay madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan leenahay madaxweynuhu waa ku mahadsan yahay isaga yaqaana cidda ka soo baxaysa xilka cidda ummadan u daacada cidda hawlkarka isaga madaxweynuhu yaqaan waxaan leenahay dadka meelaha ka hadlaya sida sugulo kale waxaan leenahay sugulow de kuwa adigu aad xusbiga soo doortay aad soo dooratay habaryoon ee cira keenay anagu waxba oran mayno xaasha lillaah waxaan leenahay anagu xaasha lillaah kuwa uu keenay ciro oo sheegta xisbigina la ogaayo ma aha reer wuxuu noqday god laga soo duulo Soomaaliland laga soo duulo dadka lagu caayo lagu maago dadka sharafta leh waliba lagu maago waxaan leeyahay godka Soomaaliland iska jiro godka laga soo duulo Soomaaliland ee laga daldalooliyo ee wixii madaxa Soomaaliland soo jeediso lagu daldalooliyo ee lagu maago waxaan leeyahay maanta ka la iska ilaaliyo ummadda Soomaaliland ha ka feejiga tabaan leh xusbiga wadan la ilaahdo ilma reeyaan la sheegin libaxyaan lahayn dadku waa is yaqaana reer Soomaaliland waa istaqaana adeeryaal waxaan leeyahay cagaha dhiga nabadgeliya wixii dadka sharafta leh ee reer Soomaaliland nabadgeliya madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland mudan Muuse Biixi Cabdi iyo xubnaha ay soo magacaabeen dhexda xusbi qaran gaar ahaan Cabdirashiid Riyaara aadanu soo dhaweynayna ka dabaqaynayna waxaanu leenahay Cabdirashiid Riyaara madaxweyne Muuse Biixi Cabdi ayaa soo doortay isaga yaqaan cidda wax u qabanaysa nimanka qaylinaya ee garxajis waxaanu leenahay hadaad qaban weydeen sugulle hadaad qaban weydeen cidii qaban lahayd anaga u hayna sugulle xirsi Cali Xaaji Xasan ayaan u gudbaya oo la yaqaan imika boqor gooye markii hore laakiin loo yaqaan magaca imikana loo yaqaan abaalaawe ama boqor gooye hadda kii la doorto waxaan leeyahay waxa la yiraahdaa daashad kama ilbaxo xirso wili cid baa ku dhageysanaysa waa looga halka ka tagtay odagii dawladda Jamhuuriyadda Soomaaliland hogaaminayay adeerkaana ahaa halka ka dhaqaaqay waa loogaay cid wili ku dhageysanaysa waxa la inaan ku aqoonin arab waxaan leeyahay war walaalayaal qori baa la soo riday inaan isku soo kayridinay aynu inagu amaanka isku dadaal xiga ala baynu nahay eedinayna ma dhaxoolin siyaasaduna eed bay keentaa wartiina ku ekaada yaan la isku soo kayridin ma leeyahay sida qoriga waxaan halka kala hadlayaa gudoomiyaha wadani gudoomiye intaad miidiyowgaysa soo taagtay anagoo madaxda xusbiyada iyo dhammaan xusbi qaranada oo dhan anagu ay suukaaya mid yihiin oo aanu mid walba aanu ixtiraamno intaad miidiyowgaysa soo taagtay ayaa tiri anagoo haddaanu nahay habaryoonis Cabdirashiid Riyaara komishinka inuu ka qayb noqdo ma raba ma aqbali doonabaad gudoomiyeysa soo taagtay gudoomiye wadanka waxaad ka doonaysaa madaxweyne dadkuna iminka waaba ku hadhuubhay haddii aad qodobkaasi bal inuu adiga xusbi ahaan iyo doonistaada iyo rabitaankaagii waxyeelayo iyo in kale gudoomiye waxaanu ku leenahay bal dib isugu noqo gudoomiyaha intaa u dhaafi mayno waa inuu qof waliba hadalka uu odhanayo ee miidiyowga marinayo ee ummaddu dhagaysanayso qof waliba balka waxyeelaya hadduu madax yahay iyo hadduu manka yahay balka waxyeelaya iyo ka wax u taraya waa inuu kala ogaadaa baan leeyahay ninka la yaa Ramaax wuxuu miidiyowga mariyay oo yiri Cabdirashiid Riyaara haddaanu nahay xusbiga ucud ma raba ma aqbali doono haddii baarlamaanku ansixiyo Ramaaxna waxaan leeyahay war Salmaan Caliyow xidid baynu nahay balina ku horta cidda uu yahay mala reer magaalku haybta aad uma yaqaan waxaan ku leeyahay balina baxla weydii cidda uu yahay ninka wax ka sheegaysa iyo duulka buuqaya meel walba ka buuqaya annagu mana buuqno mana qaylino waxna kama sheegno dadkiina buuqaya 24 saacadood meel walba taagan muraayada taagan ee dhibaatada inta leeg dalka ka wada waxaan leenahay nabadgelyada dalka hal la ilaaliyo oo hal laga daayo shuqshuqaynta iyo daldaloolinta hal laga daayo baa leeyahay irana waxaan anigu odhanayaa wadanka cod baad ka doonaysaa madaxweynaad ka doonaysaa haddaad maanta Cabdi Riyaara aad u soo dhigatay arintaadiina aad soo gelisay hawlahaagina ay ka dhex bixi waayeen haddii aadad gacanta kala bixin ayaa Cali Bukhari telefishinka caalamiga Ariel degmada Qorulugud Buuhoodle